asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena warka t v qodobada waaweyn ee xilligan aan ku eegi doono waxaa qayb ka noqonaya wadamada caalamka oo ku hordamaya aqoonsiga somalilan iyo maraykanka oo shaaca ka qaaday waqtiga rasmiga oo qabsananaya somalilan iyadoona sheegtay in dano waaweyn ay ka leedahay somalilan oo ay qayb ka tahay sidii ay kaga heli lahayd saldhigyo waaweyn oo ay u ballanqaadeen maamulka ciro waxaan idiinsoo gudbi doonaa xogta arrintaas iyo sidoo kale somalilan oo si weyn uga faraxday waxaan sidoo kale xoggeeda ka geenaa gobolka awdal gaar ahaan magaalada saylac oo noqon doonto xadun ay somalilan siiso dowladda maraykanka iyadoo dhinaca kale etoobiya shaaca ka qaaday in ay dhankeeda iyaduna aqoonsan doonto somalilan dhankeeda jabuutina waxaan eegi doonaa iyadoo ku dhawaaqaysa in aysan marnaba suuragal ahayn in gobolka awdal ay la wareegto somalilan maraykankana loo gacangeliyo qodobadaasi sidoo kale qodobo kale ayaynu barnaamij wareedkeena ku eegi doonaa ugu horeynsa daawada sabskrib inoo saar kanaalkeenan aynu ku bilowno wadamada caalamka ayaa xilligan ku baraarugayay sidii ay somalilan u aqoonsan lahaayeen taasoo maalmihii ugu dambeysay dadaalkii ugu xoganeed oo ku bixinaysay xukuumadda ciro sidii aqoonsi caalami ay kaga heli lahaayeen wadamada dunida oo xilligan bilaabaya hardankii ugu xoganeed wadanka shiinaha ayaa si gaar ahaneed waxaa la tilmaamaya inuu si weyn kaga soo horjeedo aqoonsi la siiyo somalilan taasoo maraykanku ku tilmaamay mid aad looga xumaado iyadoona sanadka maraykanka xildhibaano dhowr ah oo maanta hadlay shaaca ka qaadeen in somalilan xukuumadeeda ciro ay ka wada hadleen sidii maraykanka iyo sidoo kale somalilan u yeelan lahaa iskaashi weyn oo heer caalami ah iyadoona maraykanku ku tilmaamay somalilan mid ka mid ah waxay tilmaameen in somalilan ay ka tilmaaman tahay islamarkaasna ay xilligan dadaal badan ku bixinayaan sidii ay taageero caalami ah loo siin lahaa somalilan maraykanku wuxuu tilmaamay inuu aad xilligan ugu dhiiran yahay sidii somalilan loo aqoonsan lahaa sidoo kalena tababaro heer caalamiya loo siin lahaa taasoo la tilmaamay in qorshaheeda maalmihii ugu dambeysay si weyn loo hadalhayay hase yeeshee maanta oo khamiisa bannaanka yimid maraykanku aqoonsanayo somalilan si rasmi ah madaxweyne trump wuxuu isagoo bilo ka hor shaaca ka qaaday in aysan somalilan heli doonan aqoonsi ilaa iyo ay bixiso danaha maraykanka iyadoona ugu dambeyn taasi ay bannaan ka timid islamarkaasna xukuumadda ciro waxay sheegeen inay ogol yihiin wax walbo ay u baahan yihiin dowladda maraykanka si looga hortago qorshaha dowladda soomaaliya ee shiinaha iyo sidoo kale turkiga ay ku danaynayso sidii saldhigyada gacanka cadmeed ee ay ku tirsan xeebaha somalilan loogu gacangelin lahaa turkiga sidoo kale china hase yeeshee taasi waxay u muuqataa in godmadow ay sii galayso islamarkaasna maamulka trump xilligan aad ugu rajaweyn sidii loogu wareejin lahaa qorshahaasi dhinaca kale waxaa jirta in dowladda etoobiya lafteeda iyaduna hardanka aqoonsiga somalilan ay kusoo biirtay islamarkaasna dadaalkay ugu badneed ku bixinayso arrimahaasoo idil mid ka mid ah la taliyo sare oo ka socda xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa maanta tegay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan isagoona si cad kala hadla cabdiraxmaan ciro aqoonsiga somalilan la siinayay in sidoo kale somalilan iyadoo lafteeda ay bixiso waxay kaga baahan tahay dowladda etoobiya hase yeeshee waxaa muuqato in hardanka loogu jiro in xeebaha somalilan xilligan laga sameysto saldhigyo waaweyn ay tahay mid boqolkiiba 50 sare kaceeda laga dareemayo iyadoona dhinaca kale dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinaceeda loolan adag ugu jirto sidii looga hor imaan lahaa qorshaha maraykanka iyo sidoo kale dowladda etoobiya jabuuti waxaa la tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kala hadlay sidii loo joojin lahaa qorshahaas awdanna loogu dari lahaa jabuuti inta ay xilligan deegaansa lahayeen etoobiyaanka sidoo kale dowladda maraykanka oo iyadu aada u dooneyso in saldhigyo waaweyn ay ka sameysato magaalooyinka ku tirsan xeebaha ee gobolka awdal ay ugu weyn tahay taasoo saylac la tilmaamay inay tahay meesha ugu muhiimsan ay danaynayso dowladda maraykanka sidii looga fadhin lahaa saldhig caalamiya oo xilligan u muuqato in dowladda maraykanku ay ku danaynayso sidii arrimo dhowr ah looga fulin lahaa si gaar ahneed sanadka maraykanku wuxuu soo hadal qaaday xaliis ay tilmaameen in turkiga uu ka wado gudaha soomaaliya iyadoo ay tilmaameen in saldhig dayaxgacmeed ah laga fulinayo gudaha dalkaasi soomaaliya taasoo ay tilmaameen in halistiisa wato islamarkaasna wadamada afrikaanku badankood ay halis weyn ugu jiraan arrimahaasoo idil waxaana dad badan ay tilmaamayaan in dowladda etoobiya xilligan ay qaadi doonto lafteeda go-aano waaweyn iyadoo aad taageero ka helaysa wadamada caalamka maraykanka iyo sidoo kale jeena ay ugu horeyso madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro waxaa qudhiisa la tilmaamaya in safar uu ku aadi doono gudaha maraykanka si uu kala hadlo dowladda maraykanka wadahadallo uu ku doonayo in
meel fiican uu ku soo laado kaasoo ku aadan aqoonsiga ay Somaliland muddooyinka ugu dambeysay ay ku rajaweyneed. dhinaca kalena waxaa jirta in dhinaceeda dowladda Jabuuti ay si cad u tilmaantay in iyadu ay si aad ah maalmihii ugu dambeysay walaac kaga muujinaysay qorshe Mareykanka oo wato oo doonayo inuu kaga guuro saldhigyada waaweyn uu ku leeyahay gudaha dalkaasi Jabuuti loona raro gudaha Somaliland deegaano ka mid ah xeebta teesan, taasoo la tilmaamay in Mareykanku dhaqaale aad u xoogan ay ka heli jirtay saldhigaasi Mareykanka uu ku lahaa gudaha dalkaasi Jabuuti, iyadoona sheegtay in taasi aysan aqbali doonin in Somaliland dhankeeda ay usoo dhaadhacdo dowladda Mareykanka. waxayna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump laftiisa uu tilmaamay in iyadoo ujeed weyn ay ka leedahay sidii u noqon lahaa qaybo ka mid ah gobolka Awdal saldhigga ay ka samaysan lahaayeen. waxaana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump madaxweynaha dalkaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele wuxuu tilmaamay in iyadoo aysan ka aqbali doonin dowladda Mareykanka inay ka baxdo heshiisyo waaweyn oo hayro u wada galeen kaasoo ku gudaman sidii dayax-gacmeedka gudaha dalkaasi Jabuuti hore ay kaga fureysay dowladda Mareykanka inay dib ay xilligan dooneysay inay kaga furato dayax-gacmeedyo ay sidoo kale saldhigyo waaweyn oo gudaha Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Jabuuti. dhinaca kalena waxaa la tilmaamayaa in qorshooyin halis dheer xilligan aad looga degayo maalmihii ugu dambeysay durba ay soo baxeen. sidoo kale waxaa jirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump laftiisa isaga oo aad u qorsheynayo in la taliyaashiisa uu kala hadlo aqoonsiga Somaliland oo muuqdo mid xilligan hardankiisa ugu badan lagu bixinayo, iyadoo dhinaca kale wadamo badan laftooda ay qiyaameynayaan sidii loo joojin lahaa aqoonsiga Somaliland, taasoo ay dowladda Soomaaliya ugu horeyso oo dooneyso inay fashiliso aqoonsiga ay raadineyso maamulka Somaliland ee Cabdiraxmaan Ciro, taasoo xilligan wadamada caalamka u jeesanayo aqoonsiga Somaliland. saddex arrimood midkood waxaa la tilmaamay in Mareykanka uu qaadi doono in saldhig uu ka sameyso gobolka Awdal isla markaasna aqoonsi siiyo Somaliland, ama sidoo kale in saldhigii uu ku lahaa gudaha magaalada Muqdisho oo u raro gudaha deegaanada Somaliland gaar ahaan dhanka xeebaha gobolka Awdal, taasoo halistiisa laga degaya, ama sidoo kale in uu ka soo raro dalkaasi Jabuuti saldhiggii weyn ay ku lahaayeen oo ay geeyaan gudaha qaybo ka mid ah xeebta Berbera sida xogta aynu helayno, taasoo diblomaasiyiin fara badan ay ku tilmaameen halis weyn oo aan hore loogu baraarugin islamarkaasna khataraheeda leh. iyadoona dhinaca kale ay jiraan dowladda Soomaaliya in qaar ka mid ah diblomaasiyiin sarsare Mareykan ah inay kala hadlayaan sidii lacago malaayiin dollar dowladda Soomaaliya u bixin lahayd si loo fuliyo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ka hortagga iyo sidoo kale fashilinta qorshaha Donald Trump ee ku aadan aqoonsiga uu siinayo maamulka Somaliland. waxayna qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ka agdhow madaxweyne Donald Trump ay dowladda Soomaaliya uga baaqayeen inay xilligan qareyno qabsato, sidoo kalena ay shirkadahaasi kala xiriiraan sidii looga hortagi lahaa halisyo dhowr ah oo aqoonsiga Somaliland lagu tilmaamay in uu hawada ku soo jiray, islamarkaasna go-aano waaweyn ay xigi doonaan sida aynu xogta ku helnay. waxaa sidoo kale muuqanaysa in rajada Somaliland ee aqoonsi ay ka hesho wadamada caalamku in meel gabagaba u marayo. dowladda Jeena qoraal ka soo baxa dhankeeda waxay tilmaamtay in ay halis weyn Mareykanku xilligan gobolka Afrika ee u horseedayso gaar ahaan geeska Afrika, taasoo ay tilmaameen in ay dooneyso mid ay maamulada hoosaga wadamada caalamka ee aan aqoonsiga helin inay u ololanayso sida ay aqoonsi heli lahaayeen. si gaar ahaan Taiwan ayay tilmaameen in Mareykanku uu dadaal badan ku bixinayay sidii mar uun caalamka uu ka heli lahaa, hase yeeshee ilaa hadda aan ka helin, taasoo arinta u muuqato meel xun marayso sida aynu xogta ku helnay. guud ahaan daawadeyaal barnaamijyadeena soo iska rabno nabadgelyo.